iyadoo maanta ay ku beegnayd maalinta dhirbeerista qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalinta dhirbeerista ee wasaaradda deegaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aastaystay munaasabadan lagu qabtay hotelka Caynab ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar ka degmada Caynab xildhibaano dhalinyaro aqoon-yahan iyo xubno kale oo doora ugu horeynba halkaasi waxaa ka hadlay suduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gobolka Saraar Farxaan Salebaan Gaas ujeedada kuwa kale waa xuskii maalinta dhiraynta beerista Jamhuuriyadda Soomaaliland oo laga dhigayo Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa daraadeed waxaan kulankan uga leenahay sidii aan ugu dhiirigelin lahayn in ay u dardargelgisaan beerista dhirta iyo ilaalinta si aynu kor ugu qaadno bilicda gobolka iyo degmooyinka wasaarad ahaan anagu mar walba waxaanu u taaganahay beerista dhirta iyo ilaalinta deegaanka waxaanu idiin keenaynaa gobolka Saraar 2,000 oo geed oo aan ugu talagalnay in aan u qaybino bulshada gobolka Saraar haddaba sida loo helo deegaanka bilic leh oo ay ka fayowdahay xaalufka iyo nabaad guurka waxaanu idin faraynaa in dhirta la idiin qabiyo ay sideeda u beertaan oo ay shaaracyada iyo wadooyinka ku beertaan sida uu u beeray maayirka Berbera Cabdishakuur Cidiin oo deegaanka aad ninkaas ula shaqeeyay waxaanu ugu hambalyeeynaa inuu anigoo afka wasaaradda deegaanka ku hadlaya sida uu ugu dadaalay beerista dhirta laamiga dhexdiisa uu ku beeray Berbera quruxda iyo bilicda ay dhirtu u soo saartay deewadin arki doontaan maayirada kalena waxaanu leenahay sida maayirka Berbera uu dhirta u beeray inaa uga dayataan waxaan halkan mahadnaq uga dirayaa wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Boodaro agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Cabdirasaaq Jaamac Nuur dadaalka ballaaran ee ay ugu jiraan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Mudane Nuur Qaasim Qodax maayirada degmooyinka Oog iyo Wadaamago qaar ka mid ah suduwayaasha wasaaradaha gobolka iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Caynab waxayna dhammaantoodba isaga daba mareen sida ay muhiimka u tahay in kor loo qaado dhirbeerista waxayna si weyn u amaaneen dadaalka ballaaran ee suduwaha wasaaradda deegaanka ugu jiro horumarinta wasaaraddaasi waxaa aad iyo aad muhiim u ah maanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dhirbeeristi baa la bilaabay oo madaxweynuhu sidoo hore u aansteeyay gaar ahaan inaguna haddaynu heer saraareednahay aynu samaysano maalin gaar ah oo la dhaho maalinta ilaalinta dhirta waxa weeye dhirtu waxay ka mid tahay nolosha aynu ku noolahay haddii dhir la waayo meel la harsadaa ma jirto xoolaha aynu ku noolahayna waxay cunayaan ma jirto marka geedku waxa uu leeyahay noloshaadoo kale sida dhiig u leeyahay buu dhiig u leeyahay sida adigu jidh u leeyahay buu jidh u leeyahay sida adigu dheef mareen iyo wareeg dhiig u leeyahay buu isaguna u leeyahay dhiig wareeg uu leeyahay dhirta noocaas ah sida uu nool ayaa waxa lagu hayaa in dab si yar loo fudud loo geliyo bilaadanku wuxuu ku nool yahay waa xoolo Ilaahay ku manaystay xoolahana waxa Ilaahay ku manaystay waa dhir waxaanu nahay nolol ku nool baynu nahay waliba gobolkeenan Saraar ama Soomaaliland bartamaheeda marka laga soo bilaabo gobolka imaarta degmada Wareedaad wixii bari ka xiga waa la joojiyay dhirgoyntii waxa loo gudbay dhirbeeris Soomaa saacada aynu taaganahay dadka Caynab dadka jooga dhir bay wada doonayaan ma aha in dhir la doono ee qofkii geed hela waxa loo baahan yahay geedka inuu ka dhabeeyo uu geed jira noqdo ee aanu geed u qaato meel saaro aanu noqon waynu iska warhaynaa dadka waxaad moodaa way jecel yihiin wax wacan haddana waxaad moodaa in awoodi ka yar haddii dhirta aynu helno aynu beero in baynu caynaana leenahay in wax inoo soo noqdaan aynu dee wax soo kuweena macnaha aan waxba goynayn inaynu wax soo celino horta maalintana waa maalin muhiim ah in badan baynu waxaanu sameynaynay dhirta in la gubo in la shido in la dhameeyo amase dee maxaan idhaahdaay xaaluf aynu ka dhigno gacanteena aynu ku xarayno laakiin waxaa loo asteeyey maalin la yidhaaho maalinta dhiraynta adduunka waxaan u malaynaya waxaa lagula dagaalamaya in dhirtu dib u soo noqoto dhirtu marka hore laba faa'iido ay leedahay waayo iminka dabeecadahan sii kululaanaya ee deegaanka caalamiga waxaa jira dhirtu
marka u horeysa maalintii waxay keentay oxygen arligana dee kaarboonada iyo way ku badanayaan baabuurta iyo waxa soconay wayna ognahay habeenkiina waxay soo daysaa kaarboon odayaashii hore berigii hore way naga cilmi badnaayeen dadkan waxay odhan jireen dhirta habeenkii hoos seexanin qof kasta oo gobolka Saraar u dhashayna wacyigelin dhankiisa kala gudboon ha ku dhaqaaqo wargeedka in la beero ha ku tashkiiliyo oo ha ku waaniyo ha ku wacyigeliyo isduwaha wasaaradda deegaanka oo runtii ah isduwa aad u firfircoon oo intuu xilka hayayna runtii qaaday tallaabooyin muhiim ah way ugu muhiimsan tahay maadaama bulshada gobolka Saraar way og yihiin gobolka Saraar dhuxushii ugu faraha badnayd baa laga gubi jiray ilaa iyo xamar baa la hasiin jiray ilaa iyo Puntland meel aan loo soo doonan jirin maantana ma jirto gobolka Saraar hal gaari oo dhuxula oo ka baxda runtii deegaankii uu daba qabtay wasaaradda deegaanka aad baa loola shaqeynayaa sidii dhir beerista ay ugu beeri lahayd guud ahaan gobolka Saraar degmada yar ee la yiraahdo Gabiley degmada Gabiley ninkii arkay baa arkay markii la gelayo dhirta ugu quruxda badan gobolada galbeedka Gabiley bay ku yaalaan waana meel ka yar gobolka Saraar gobolka Saraar aynu ka dhigno gobolka ugu cagaaran gobolada galbeed bariga kale waxaan leeyahay maalintan waar 2000 ee geed ee maanta ay wasaaradda deegaanku ina siisay inta ka badan ee la keeni doono waxa weeye waa inta ilmaalin kaliya gubnay one day shakhsi kasta oo wasaaradda deegaanka ka tirsan waxa laga rabaa dhirta la beeray in subaxii uu soo kormeero waxa kaloo jirta dhirta maanta la qaadanayo la iska qaadan maayo waa la diiwaan gelinaya jaamac bood cadde warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba